نين سوماليا بحا مروكو تيجي ناق مروكيا عارو حقيقة إن نيجي دبقي مروكو سومالي كلي متقطع وحاد تاجو أجنبي ودنا واحد تاكي مع ذي مريكان حدانو ينبل بلو يا ماشي تاجا ناش محلو تاجا بور لهم تاجو حين قط حرنتي إلوينك أما حرنتي شووينك نقط حرنتا داني شيء أنا عايق مبرن لكن حرنتا نيجي دبقينا because رجع وحاد شعلنا هاي وحي رقيصة شعلنا وحا كفكرنا لبدنا دحدودا waxa cadaan ka soo baxay aqliga inta soo markuu cadaan ka soo baxo kadib waa fikirina marka Morocco la tagayo oo naag laga soo guursanayo naaga la soo guursadaniga dabageena naaga Morocco laga soo guursado waa naaga faqiiriin maalintii waxa laga yaabaa $1 inaad xataa aan helin cunto iska badaayo marka anoo faqiire maanta da arko ninkii imaaday Mareykanka oo lacag haysto oo god weyn oo cad oo qurux badan daankiisa xataa aamud cunto tiyo hooy iska daa dhaqankayga xataa awdeena ninkaas raaca hada Morocco-ne YouTube gal Google gal eeg dad xataa ku dhahaayeen waxa ku dhaca daaratid niman cadaan oo ka qurux badan Soomaalida oo dimaho dahabiya double blue leeyihiin ayaa la qiyaamay oo aqoon yaqaanaan anaga jaahiliina naga buuxo iska badaa Europe inta la iska imaaday ayaa la iska xamaalana wili wax lama baran jaahiliina nagu buuxo abtiyo raggi ayaa waxay ka soo qoreen vlog ka soo qoreen blog ka soo qoreen ragga kale waxay kula talinayaan xataa saaxiibayaal meesha saateegina meeshaas waxa waa xuruntii prostitute af Soomaali waxa loo dhaxay xuluntii dhilooyinka waaye naag meesha ma joogto dantaada ku wadata adi 2000 wax kulo ma ahan laakiin 2000 wax weyn ku tahay kan labaad aw gudbo naag ajnabi hadaa rabtid tii wadanka joogtay Sweden ama Norway ama Finland ama meel doonta ahaato ama USA ama South Africa wadankay ka buuxaan banaag ajnabi wadan kasto qasab waa Morocco inay joogto hadda Belgium oo kale ka soo qaad Morocco half waayo population half waayo Holland iska badaybo France iska badaybo Jarmalka way joogan Sweden way joogan abtiyo kuwaas ma la hadashid hadii aqli aa leedahay aad naaga Moroccan naaga fiican waaye kuwaas xabada ka soo qabsan leed kama soo qabsan kartid runta isku sheeg isku day xataa kama soo qabsan kartid way ku yasaayaan waxa ku dhaano nin Moroccan u joog naag naag madow xawl iga madow waa Afrikaan waaye laakiin waxa isku aaminsan yihiin in ay Hakimi arag nin madow waa hooyis naag madow waa siyaaj arag nin cadaan waa marka iyagii sida Soomaalida isku bahdileeno adees jireer waa qofkan waxa waay saas waa qofka saas waa iyaga isku bahdilaan marka hadalkiina soo goobiya rabaa ragga aqli yeesha saaxiibayaalo TikTok aski maan aska hadlina naag Moroccan hadartid lacaga xataa bixina lacag ayaa bixina wiilkii Yaasiin la dhaayo Sweden joog abtiyo taas iska daa Belgium isku raacinaani adiga naag Moroccan ku tusaa la hadal xataa iska daay ina assalaamu alaykum salaam ku dhahdo walaalkeeda ku wacay beerka laga garaaca marka kuwa dhaqanka noocaas hadaa ka soo kiciyay wadankeeda akeent Europe ee gabar kale Moroccan fara kala qabato oo Moroccan ka dhaninka madow waxa ku geey nagta laga fura hadii laga furo waa waalanaysa waxa ku dhawaanaysa xataa ina laamida jiifatid waa goor tahay wiilish hadda waxa ka hadla wiilish hadda oo rab inay Morocco tagaan ee qarash u baxdo saaxiibayaal walaalahay tihiin wiil Soomaaliya tihiin jabkiina ma eegan kari marabo inaad TikTok ku arkanin Soomaaliya gabar Moroccan waashay hadii la isqabsanayo abtiyaalo wadan kasto Morocco way joogtaa Morocco uu tagays Morocco oo hadhow ay keenays ee kugu qasaarayso waxa kugu dhaanto mida meesha aan ka barta tay kugu qasaarto qarash xataa kaga bixin because qarash diyaarada bixaysid $1 waa ama go-an baa kuni shamska leh hotel oo baahanta waxaas hadii la isku soo aruuro waxa qarash ka baxay 5,000 ama 6,000 ka bixiso midda labaadne gabdhaha Soomaaliya la caynayo ceeb ay nagu tahay saaxiibayaalo hooyo Soomaaliya ku dhashay gabar Soomaaliya kula dhalatay gabar Soomaaliya saaxiibta waxa laga yaabaa yaraanta ilaa 15 jil lixto inta Europe ka iimaanaysay ina Soomaaliya waliya arkiisay ina caysi ceeb kugu tahay waa dadkii ku soo koriyay waa tii naas ku nuujisay waa tii adoo ay ku cuni rabay hadii leemay ku dhigay ay ku cuni lahaa cunug yar ay had samci ya iska ma dhigi karin waa tii ku hay saxaabad ku haysay jizaar ha noqon ha jizaarin gabar Soomaali hooyadii hadee Soomaali taa gabdhaha Soomaaliya isku mid yihiin tii xumayso hooyadii oo dul qaadana
gabdhaha Soomaalida midnii sheega gabdhaha Soomaalida walaalayaalow waan jecelnahay raggan waxaan dhahay waa rag gabdho xun Ilaahay siiyo Soomaalida aduu sheega xataa koox xuna ku jiray koox fiican badan marka maanta Ilaahay haduu igu soo aadin naag Soomaaliya xun wallahi wa billahi tallahi wa usamra ma ahane gabdhaha Soomaalida macaynay مداي قبلها صومال دم الصقوة حتى ذا كم من وحيس وقال ناك أجنبي قبطانك مع نوجود دي أبتي ناك أن أجنبي أنت نقولسن كهر أنا كبر صوماليا ولي كوه مناي ولي كبر صوماليا نقولسدو عيال صومالي دلو وكوه مناي بيني مش يادتك الساحة هدتك ده إيقانو ده داونا فيديو سفي عن إيقان يرانت إلى هذا ويدين كرتين لكن سمرك عارف كبر صومالي إن أبابك حتى يفرين أبتيو حاسمي حدا صحيح وقت انت اسكلوا من لهد ملاك الوحكة الضيو قبرت عدان دي تانو قولسو قبل كل هورو عدانا اقاني او سلوفاكيان كممنا فاناي لكيس على فاراديناي على فكي ماشا سيئي قالي وانا مالين انا قبرت اذا حاسكي تيك توك هنايو او قبلها صومالي عينا ولي اليوم ماركين هورتي دا ايا قبلها صومالي ما نقسم كان لايف سوغل واكو امانا قبلها صومالي دا حدا وفي عين حدثها محادي في عين ومسيري حتى لكيسه قبلها Soomaalida markas ka kormariya waliga gabar Soomaali uma bahdilay haddana gabdhaha Soomaalida oo nimanka ajnabiga raacay abtiyo marka tusti gabar inaan nacib tahay caynaysid u dul qaadanin abtiyo waxay tagaysaa nin u naxariisanay nin kala wadan kala ka imaaday oo akhlaaq la soo baray oo aqoon yaqaano ayaa af macaan u imaanay gabdhaha sanadkan ma eegaan jareer miya jileec miya may xidheesa qofka nolol ku leedahay walaga yaabo gabarta markay yar tahay oo bikra tahay inay dhahdo nin shaaruqana raba laakiin markay garoob noqoto runtii arkaysaa jaceylku uu sheegay inuu ahayn qurux jaceylku uu sheegay inaan lacag ahayn jaceylku uu sheegay inay tahay qadaris iyo farxad gabdha badan aqaana garoobe oo niman ajnabi guursaday iyo gabdha yar oo hadda ku haminay niman ajnabi guursada midaan ila talina markay gabdhaha xumeesa ku xumeynaysa nin Soomaali nin ajnabi oo baarada iska gudin oo muslim ahayn ha guursan nin ajnabi oo muslim oo Ilaahay ka cabsanayo because qofku markuu Ilaahay ka cabsanayo oo adina naxariis ku sameyn kara qof aan Ilaahay aqaaninba naxariis wax loo ma yaqaano intaas aan u talnaa insha Allah ii share gareeya dadka kale oo aqliga lahayn gaarsiiya gabdhaha Moroccanka lagu raacayo oo Morocco la tahay qarashka ka bixin Morocco Belgium joogta Belgium tigi u soo gooso adaa Sweden joogta tigi xataa ka ambano flexible soo raac eeg dhaqankooda eeg سيه مروكيانكا كبعد يقولسو وحار ربا ناك عدار ربا قبلي هنا عدان تكون شيء انت ليش قف عدار ربا قبلي لما يحسكوا وح على اسم مري حتى قبل واحد جرو شركه كانسر كقاده وكل انت وعندنا اوجين تيو قبلين هنود دائما مدوغني مدوغدي نور كودي كون على عدو الى على عدان اساسا ku jecelna gabdhaha yaa la waalin yaa qalbiga laga dilin gabdho ilaahay soo ku awuuray ayaa ku qurux badan maanta ilaahay sankan weyn u yeelay maalin kasta waa lagu caaya jareerata laakiinse wallahi marka meeka baxo marka tukana ilaahu waa quruxda isiisay waa ku mahsantaa because cheese ma ihi inda malihi ilaahay lixda wuu dhamay ilaahay lixda uu ku dhameeyay qurux kala raadisid qalada ku taa because qurux kala daarayso waxa dhoosa ilaahay caynusa ilaahay waxa dhoosa waxa rawi imasiin marka insha Allah ilaahay yaa lagu dambaabin maxaan ilaahay quruxda ku sii hayso marka insha Allah taasan dilahay ragga Soomaalidana saaxiibayaalo ilaahay ka baqa gabdhiina xanaaneeya Yurub la jooga qurba la jooga gabdhaha noo xanaaneeya insha Allah khayran ma aha ragga Soomaaliyeed oo kaliya waxa marag ku sii qolqolaya sida aad ka daawan doontaan reportkan idin soo wado waxa isugu tagay gaal iyo islaam bar especially reer Yurub oo fusuq iyo qaniisnimo iyo balwado iyo daroogo iyo caruur yar oo rag iyo dumar bale oo ay u isticmaalaan sex u tagay meesha bal nala daawo intaan u gudbin aragtidayda reportkan ay Francis TV ka diyaariyeen. Bienvenue à tous. Welcome to Reporters, the program that brings you the best and exclusive reports by the France 24 team from around the world. Millions of tourists flock to Morocco each year to enjoy the sun, to see the sights, to relax and basically enjoy a different way of life. But there are increasing numbers of people who are going there to exploit young and vulnerable people, male and female, for sex. Prostitution is often called the world's oldest profession, but the young people featured in our report haven't made a career choice. They're trapped in a cycle of exploitation, many having fallen victim to the AIDS virus, and all have been used
some even abused illegally. sida aad ka aragtay riboorku wuxuu tilmaamayaa in ay Morocco ku soo badanayaan dadka u yimaada sexy tourism waxa la yiraahdo dadkaas oo raadinaya dad vulnerable ah oo caruur ah oo duruufuhu iyo waqtigu jeexjeexay oo aan choice kala lahayn amal kala lahayn ee boodhigooda ka ganacsada dadkaas oo isugu jira waa sida warbixintu sheegtay caruur rag iyo dumarba wasiir Faransiis ayaa kamid ah dadka lagu qabtay waana sababta riboorka loo sameeyay sida ay warbixintu sheegayso oo isticmaalaya wiilal yar oo Maroccan ah reer galbeed badan ayaa habeenkii markay khamriga cabaan banaanka u soo baxa oo raadiya waa meeqa $10 waa meeqa €10 su'aasha isweydiinta leh waxay tahay ragga waaweyn oo Soomaaliyeed oo muslimka ah oo aabayaasha ma projectigan ka qayb qaadanayaan ma something outside the box bay raadinayaan oo ay Somali women ka waayeen what's going on ma something else but turns them on wax kale miyay raadinayaan wixii aan aqaanaa ahayn ilaan qurux iyo qiimo iyo sharaf iyo karaamo iyo udgoon iyo laguma gaaro dumar Soomaaliyeed raggani maxay raadinayaan Moroccan woman ma cover ba ma something kala jira waa adduunka doon waana ayaan daro waana wax lala yaabo Europeanki iyo reer galbeedki iyo dhalinyaradii khamriga cabayso cadaanka sex tourism inay u tagaan la garay laakiin nin weyn oo content jira oo Islam sheeganaya oo asna projectigaas ka qayb qaata waa wax lala yaabo runtii odayaashaas waxaan leeyahay war meesha haday sex industry hub noqoto oo adduunka afartiisa gees looga yimaado waxa yimaada adduunka afartiisa gees diseaska iyo cudurradooda dhan baa meeshaas yimaada waridinkuna haysan laginina Marokkadiina ma ahane ummadana ha ku soo celinina diseases aan hore loo arag aad baan idin salaamay waxaan waliba si gooni ugu digayaa kuwii aan u dagaalanay oo aan xoreynay oo qaad ka joojinay oo xay ka dhignay gabdho guursada ay raano Moroccan idin diray wallahi aan qaadkiina ku xilnay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.